Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maalin wanaagsan asxaabteeda qaaliga ah, isku soo noqod wanaagsan. Waxaan rajeynayaa dhammaantiinba caafimaad insha Allah meel walba joogtaan. Walaaladii qaaliga maanta waxaan noo wadaa kalluunkan salamka iyo sooskiisa sida aan u samaystay maasha Allah. Isagoo wax saliid ah aan lagu shiilin oo bilaa saliid ah insha Allah. Markaa qaabkii aan u samaystay in aan idinla wadaago ayaan jeclaystay. walaaladii qaaliga idinkana share like comment insha Allah asxaabta nagu cusub ee soo booqatana waxaan leenahay subscribe ka hana la dhaafina hadduu channelka ku cajabiyo subscribe noo saar gambaleelkana furo si aad uga mid noqoto walaalada nagu xiran insha Allah waan niiga mahadcelinayaa asxaabta ila joogtana iyagana waan uga mahadcelinayaa ee mar walba igu xiran walaaladii qaaliga hadda meeshan waxaan ku haysanaa kalluunkaas aad aragtaan maasha Allah markaa hadda waxaan diyaarsanayaa waxyaabihii aan marmarsan lahaa insha Allah wax badanna maaha waxaan marmarinayo xawaashi badan ma marmarinayo insha Allah in yar ayaan marinayaa oo filfil ugu horeysa hadduu Ilaahay yiraahdo kadibna waxaan rabaa in aan bilaa saliid ku shiilano insha Allah sidoo ku soo baxayna waad aragteen isagii sooskiisa isagoo bilaa soosana waad arki doontaan oo sidii markii ovenka aan uga soo saaray ah insha Allah ila socdo walaaladii qaaliga ah hadda waxaan soo diyaarsanayaa hadduu Ilaahay yiraahdo filfil yar ayaan tumanayaa mid tuman iima taalo aniga taas nool ayaan haystaa inta badan isticmaalaa oo aan kaliya mooyahayga ku tuntaa insha Allah markaa waxaan sameynayaa hadda waan soo tuntay sidaad aragtaanba dusha ayaan budadii kaga darsanayaa isagoo aan soo budeystay ayaan hadda in yar dusha kaga buubsaday sidaad aragtaanba markaa hadda waxaan diyaarsaday wax yar oo barbarooniga shiidan ah iyo in yar oo maxaan idhaahdaa xawaash yar oo isku jira ah oo kaari iyo la isku dardaray ah insha Allah kadibna waxaan ku soo qasanayaa in yar oo biyo ah iyo xabad maraq digaaga kadib hadda waxaan soo saartay sixnigii aan ovenka la gelin lahaa sidaad aragtaanba kabacdi hadda waxaan soo diyaarsaday sooskeygii oo aan soo qastay oon rabay in aan soos yaana dhihin crowdinkeennii ama carfisadii aan ugu talagalay kalluunka dusha ka marmariyo markaa hadda sidaad aragtaanba dusha ayaan ka marmarinayaa giddigii si fiican ayaan isku gaarsiinayaa oo korka ka marmarinayaa maxaan idhaahdaa malaygana waxaa waaye haddaa gadgadisid oo maanta dhan wadadid wuu burburayaa marka meeshiisa isagoo yaala ayaa fiican in si tartiiba aad u marmariso insha Allah sidii hilibkii digaaggii oo kale uma adka gacantana uma fiicno markaa hadda qaandadaas ayaan ku marmarinayaa sidaad aragtaanba insha Allah ovenkana wuu noo sii shidan yahay hadduu Ilaahay yiraahdo kadibna ovenka ayaan gashanaynaa 250 ayaan kasii dhigtay si uu igu kululaado si fiican kabacdina kalluunkeenii oo aan marsanay carfisooyinkeenii insha Allah wax saliidina looma dhaweynayo ayaan ovenka gashan doonaa insha Allah ila socdo walaaladii qaaliga asxaabteeda qaaliga haddana halkan waxaan ku sameysanayaa sooskii yaraa ee aan ugu talagalay in aan kalluunka dusha kaga darsado insha Allah markii la cunayo hadduu Ilaahay yiraahdo markaa kalluunkeenii hadda ovenka ayaan gashanay insha Allah ila socdo waad arki doontaan siduu ku soo baxo hadda baaqulidan waxaan ku diyaarsanayaa sooskii waxaan hadda halkan ku ritay waa yogurt 3 mulqaacadood oo qaandada yar ah oo yogurt ah waxaan kaloo ku darsanayaa waa toon shiidan oo aan shiiday hadda
waxaan kaloo ku darsan doonaa insha allah liin dhanaan, jeex liin dhanaana si ay dhadhan ugu yeesho ama dhanaan yar oo macaan ay uga dhigto insha allah. marka hadda jeex liin dhanaan ayaan ku tuujisanayaa sidaad aragtaanba. waan ku dhameynayaa jeexa dhan insha allah, kabacdina waxaan ku darsan doonaa marka hadda liintii waan kusoo dhameynaynaa insha allah sidaad aragtaanba. kadibna waxaan ku darsan doonaa in yar oo kamsar ah hadduu ilaah yiraahdo. waxaan kaloo ku darsan doonaa insha allah wax yar oo maxaa irahday huruud ah oon badnayn oo in yar ah. marka kamarada intaas waa iga yara go'day, laakiin wax yar oon badnayn oo qaandada afkeeda hore ka siraysa ayaa ku darsanaya insha allah. intaas ayaan isku qasanaynaa, waad arki doontaa sida uu kusoo baxo. kalluunkeedina ofinka ayuu noogu jiraa, markuu noo diyaar garoobo ayaan kala soo baxaynaa insha allah. waad aragtaan hadda sooskeeni sidaas ayaan usoo sameysanay. maasha allah dhadhankiisa kaale iska arag waaye. waxaan ku eray maasha allah tabaarakallah dhanaan yar oo waxaa waaye aadna u macaan. yoqortiga lagu darayna wuu dhanaan isagana wuu leeyahay, laakiin xoog dhanaan ma wada noqonayo. si yaroo dhadhan yar oo macaan badan ayuu kusoo baxaya insha allah. asxaabteeda qaaliga hadda sidaad aragtaan kalluunkeeni sidaas quruxda badan ayuu noogu soo baxay. maasha allah tabaarakallah wuu noo soo gaduutay, si fiican ayuu noogu gaduutay. marka kalluunka noocan isaga ayaaba saliid dhalo, uma baahna saliid insha allah. ofinka markaa gelisid waxaad arkaysaa isaga inuu saliid yar keenay oo saliid uu dhalay. marka asxaabteeda qaaliga sidaas quruxda badan ayuu noogu soo baxay. haddaad ka heshaan laagtaa nala dhaafina, sheerta sidoo kale, commentigana hoos noogu reebo wixii fikrad ra'yigiina insha allah bidnillaahi kariim. waxaana idin leeyahay wax noo balana fiidiyooga xiga insha allah bidnillaahi kariim. la socdo fiidiyooga insha allah wuu sii socdaa wax yar dhammaysta fiidiyooga insha allah. asxaabteeda qaaligana waxaan idinkaga tegayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.